waxaan joognaa kaam ay degan yihiin dad barakacyaala oo ku yaala magaalada Kismaayo xaafadda Faanoole. waxaan u keenay saaka qalab yar oo loogu talagalay ama ka hortagga cudurkan safmarka oo coronavirus-ka loo yaqaan. wax badan ma aanu keenin, laakiin waxaanu keennay wax tijaabo ah. kuwii haamihii gacmaha lagu dhaqayay iyo wixii kale waxaa sawirada ku arkaysaan, kii gafuurka lagu xiranayay, kii gacmaha lagu dhaqanayay oo kale oo guriga lala tegayay. haamahana meeshay oolaanayaan iyo ciddii meeshan timaado meeshan xarun bay u tahay. barakacyaasha meelo badan baan ka qaybanay. iskoolaan geynay, MCH-aan geynay, xaafadaan geynay, barakacyaal baan keennay. dhammaan alaabtaas dadka waa la gaarsiinayaa. yay tiro badnaan, laakiin waxa waaye siyaabaha la isaga ilaalin karo baalka waa. waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye dadku inay kala fogaadaan, gafuurka la xirto, gacmaha la dhaqo. warkaa waa cadiya soo maa gacmahana hala kala fogaado distance iyo baalka maaska oo la xirto iyo in gacmaha iyo taabashada caadiga la iska ilaaliyo. intaasun bay hadda qola yihiin waxaan cilmi baarayn kuwaasaa ugu muhiimsan bay yidhahdeen. wax kale ilaa hadda daawo looma hayo. waxaan rajaynaynaa marka inaad ka taxadartaan. barakacyaashu waa dhib badan yihiin, waa iskor saaran yihiin, waa cooshado. ilaahay xamdigii ilaa hadda problem badani kama dhicin oo cudurkan ku saabsan. ilaahay baa badbaadinaya markii dad masaakiina waa. waxaan rajaynaynaa inaad dadaashaan nadaafadda in lagu dadaalo. waa ognahay waxaa laga yaabaa musqulo iyo wax ku filan inaydan haysan baa laga yaabaa, laakiin wixii in la iska taxadar saxarada iyo problem kulli waxa weeye cudurka waxa keena iyaga waa.